بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Cabdinuur Maxamed Maxamuud. waxaan ahay shakhsi ka mid ah ardada ama dadka ka aflaxay Bravo Group Academy. Khaasatan waxaan ka bartay oo bishii shanaad sanadkan aan dhameeyay koorsada magaceedu yahay suuqgeynta iyo iibka. Alxamdulillah walow aan horena u soo bartay fildiga ganacsiga muddo badan aan kusoo dhex jiray ganacsiga, waxaan dareemaa inaan ka faa'iiday wax la taaban karo oo ugu badan tahay qaabka loo diyaariyay. Marka koobaad waxyaabo aan ku amaanayo koorsadan waxaa ka mid ah waa koorso daaweynaysa cudurro la taaban karo oo ka jira ganacsiga, haddii ahaa lahayd sayliska, haddii ahaa lahayd suuqgeynta iyo customer service-ka. intaba cudurro la taaban karo oo dadka Soomaaliyeed iyo ganacsiga Soomaaliyeed ay qabaan daaweyni waxaa loo diyaariyay si xirfadaysan, haddii ahaa lahayd muuqaalka tayadiisa, koobnaanshaha waqtiga oo kilib kastaaba oo waqti kooban ilaa 5 daqiiqo iyo wax lamid ah uu yahay oo aadan ku daaleyn, bal laga yaabay adigoo isdhahayo 1 saac ama nus saac si inaad mararka qaar aragtid adigoo 1 saac bar kor taagan oo intaas oo muuqaaladan ugu talagelin aad fiirsatay. intaas ka bacdi koorsadan markaan dhameeyay waxay ahayd bishii shanaad ee sanadkan sidaan hore u sheegay. waxaa jirtay isla markaas post aan ka diyaariyay oo dhigay bartayda Facebook oo aan ugu dan lahay anigoo markaas aan Bravo si directly qof aanan isaga aqoon, laakiin maadaama cilmiga aniga aan faa'iiday aan u arkay inuu wax qiimo leeyahay, aan ku dhiirigelinayay ardada Soomaaliyeed, ganacsatada Soomaaliyeed iyo qof kasta oo hadee markii marketing la leeyahay ama suuqgeyn markii la leeyahay kaliya maahan in product ama service la marketing gareynayo, qofka xataa bini'aadanka naftiisa erey aad rabtid inaad qofka dhaadhiciso laftiida ama naftaada inaad qofka gedid waxay ka mid tahay marketing. saas darteed anoo arkay in qof kasta Soomaaliya ay muhiim u tahay, aan jeclaystay dadka aan baraha bulshada aan saaxiibka ku nahay inay ayagana ka faa'iideystaan. mana ahayn markaas inaan ugu daneynayo ama aan u sameeynayo marqaati fur iyo customer testimony waxyaabo waxa la yiraahdo inaan Bravo u sameeynayo, laakiin bulshada Soomaaliyeed anigoo isla uga faa'iiday oo adiga cilmigan aad ka faa'iiday iyo maxaa la dhahay iyo casharada aad ka baratay intaba anoo jeclaystay inaan dadkayga iyo maxaa la dhahay la wadaago bulshada Soomaaliyeed yaan dhigay. qof kasta oo Soomaali ah haddii kuu suurtagelayso aan rajeynaa inay kuu suurtagelayso maadaama ay waqti ahaan kooban tahay, online ay tahay, waan rajeynaa qof kasta oo Soomaali inta ugu badan dadka Soomaali inay ka faa'iideysan karaan. waxaan leeyahay laga faa'iideysto. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.